muraadkaaga nololeed halkaad maamka ugu hayso hayaankaagu meel doog leh iyo madarsan kuu geeye murugada aadun kuma heshiiye muruyo ciishoode xagayganaba waxaad ka tahay maanta dabadeede marantida haween waxay sugtaa waa martabad guure minan inaad degtiyo raasku waa lagaa maarmaane madar khayr le mool iyo xariir moos nimcadu taallo maal iyo arsaaqaan gurin baraka mood yeesha masna iyo baraadhaha adduun nolol macaankeeda awlaad magaceebiya taqaan diinta marinteeda muxubada haldeer kugu saba oo murugta kaa dhowra iyagana qofkaagii mulkudo faataxaan maraye anigana gayaan magaca leh iyo dumarku waa muushe macsalaama waxaan kugu ogahay magan ilaaheebu. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waana wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo codkaygu idinka soo gaadhayo kuna soo dhawaada barnaamij suugaaneedkii idinka iman jiray rugta ururinta suugaanta iyo su-aalka ee qalinsoor. toddobaadkana dhegeystayaal barnaamijka waxaa marti noogu ah abwaan cabdiraxiin yuusuf cabdi oo loo garan og yahay ciir. cabdiraxiin waa nin dhalinyaro ah oo suugaanyahan ah kana mid a run ahaantay dhalinyarada waqtigan tirinta maasada safka hore kaga jira. ugu horreynse aan kusoo dhaweeyo rugta ururinta suugaanta iyo sooyaalka ee qalinsoor in abwaan cabdiraxiin soo dhawow. calaykum salaam walaal waad mahadsantahay mawlid maxamed odowaa ee wariye sare adiga iyo bahda qalinsoor ee ururinta suugaanta afka iyo dhaqanka u darban waan idin mahad celinayaa waa aadna waa idin salaamayaa waana dhowahay. cabdiraxiin horta ma ka mid tahay dadka ku taxan amba hore wax mauga dhegeystay barnaamijyada suugaanta ee ka baxa rugtan ururinta suugaanta iyo sooyaalka ee qalinsoor? mawlido muddo dheer oo ku siman imanka ilaa 2017 ama 16 meelaha waan dhegeysanayay. ragii kala duwanaaye waaweynaaye roob daayi lahaaye bashiir ismaaciil lahaa alla raxmaan raxiim dhammaantood ilaa waqtigaas suugaamaha waan dhegeysanayay iyo rag dhalinyaro yarar oo ka dambeeyeyba waan ku taxanahay. aad iyo aad baa umahadsan tahay cabdiraxiin. runtii fursad baad u yeelatay adna maanta inaad kamid noqoto dadka maaragtay bal halkan suugaantooda dee dadka ka waraabiya. cabdiraxiin ciir waa kuma? waad mahadsantahay mawlido walaal. kolley waxba taarikh saa usi ballaaran lagu weyn raacraaca malihiye cabdiraxiin oo nin dhalinyaro ahoo dabayaaqadii 9aadkii ku dhashay magaalooyin kamid magaalo kamid magaalooyinka hawdan rasiif area magaalada abhorela gaar ahaan waatay maxaan ahaa waxbarashadii hadday noqoto xagga diiniga iyo hadday noqoto xagga maadigaba halkaasay kasoo bilaabatay. halkaasaan qur-aan ku dhameeyay dugsi sare kaga baxay. waatay waxaan u gudbay xagga iyo magaalada jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka soomaalida. halkaasay jaamacaddeedu ahayd. iminkana waxaan kamid ahay ama waxaan ahay macallin kamid a macallimiinta dugsiyada magaalada hargeysa dhulkiisana u dambeeyey. waatay dhinaca suugaanta iyada markii kugu horreysay aad istareento ma xasuustaa? mawlidow suugaanta markii ugu horreysay is-iri waxbaa isu keeni karta inkastoonan suugaantii aan idhi aanan si fiican wax ugu wada haynin. waxay ahayd ilaadii 2010 meelaha 11. way halkan waxay noo yaalaa maasooyin kala duwan oo runtii aad hal abuurtay. ta koobaad aan soo qabtee tix gabaya oo alkudhigeeda la yidhaahdo goodi ayaa ka mid ah. goodi maxay ku saabsan tahay? mawlidow goodi wuxuuna ku saabsan tahay bal suugaanta iyo macnaha xarageedu siday ahayd iyo iminkana bal dadku sidee ay isticmaalkeeda iyo nibalninta sida kaalinteedii loo bedelay iyo de sidii loo qiimeyn jiray oo iminkaan loo qiimeyn. aad iyo aad. haddaynu kusoo dhawaano gabayga goodi wuxuu odhanayaa wayadan tixdii maan gurgurinina gafay dhoowe godka jiiftee maqasha iyo haanta guradeeda ragu maan guwoodaba ka korin maansadii guriye gaaflay calmaday madal haddii gibisha lay saaro inaan gabayga hoos uga dagaawayga garanuuge haddii kalena geerar mugland godol naqeeyaaye haddii kale gadii masafadaan ugu garqaadaaye wax kaloose geeda la taga magac ma gooyaan. afarayda lagu gaagaxee guriye baydgaabku iyo tuushka guuxaan murtida udug ku geedayne macshariyo haddii golo la bilay guriga loo waabo uu gabana roostii mawlida gabanka garabka soo saaro guddiye barbaar lagu waco geeshkii wadadaalo abwaangaasa baxay oo murtida shacabka gaadhsiiyo oo maxafid guubaabiya guraya weedhiisa urgaxsidadu daahirow
goortuu midhar sheego dadka qaar dhagaha goofiya oo guntaa jiray gadaasaani xiisiya hanaan gaara ku lahayde gidigeen abwaan iyo hadeer shaacir la gudub godkee baayah uga dhiga gogol fardowsaade gaariyaa wuxuu yidhi kol haddaad gocasha maansooto xarafraac lagu geydiy wadeerayga goobkiisa waa inaad kun qaafiyada gala guran taqaanaaye waa inaad kun qaafiyada gala guran taqaanaaye dhowr gelin inaad ducato iyo gabadh cawaaceeb hadduu gaajo ruux qabo asan gudur la siinaynin amaanaad gaawaya markaha caano ugu geynin dabuub guuna iyo maasida lagu gasiimaaye tixdii way gubtahayoonaysaa oo gaf baa jira ee daraan xeel u garanaynin baa gabay xilkeedii galbiskiiyo shaxaynteedii bay gabi ka tuureene gallad iyo jisqaad kuma ladhaan guniyo baarkeedi ku kastaba waxay tirinayaan malaha gawsreebe faafreebkii laga guur mar hore taaba gelin laaye raggi godadka saadaalin jiray gaageer baa hadhaye badi geeshkaan curin dabuub uurgashiima lehe geeldaaqma maryaan qastiga loo golleeyahaye indhaweed inuu gaaguf helay waan garwaaqsadaye hees loo garaaciyo haddaan muusig loo gelinin sugaanta geedaha leh way kugu garifaane dadku imika waxay u badan yihiin hees dhegeysi ha aad iyo aad de weliba hees lama dhegeysanay waa muusin baa la muusig qura weeyaa aad iyo aad hees loo garaaciyo haddaan muusig loo gelinin sugaanta geedaha leh way kugu garifaane gahayriya hadday nool yihiin ina gala yidhaahden khadar uma goofaadhiyeen guushku maansada ee gashi baa la weydiin lahaa gooja been lahaa ee imikana haddaan guurti iyo odaya loo geynin gashi badan haddaan lagu yakay kuwan galoofeeyey sugaantay gumeeyeen haddaan jeelka lagu geynin walle inay gabaabsii afiyo gabay dhammaantiye gabaygaasinahaa ayuu ahaa waa hagaag runtii waa gabay aad iyo aad u cajiiba bal hadda ka rogo haddana saar baynu odhanna cabdiraxiinow dee nin dhalinyaro ana waa tahayoo dhankaas iyo waxaynu kacaynaa dhinacay dhalinyaradu jeclayd waan garta waxaa jirtay maanso heella ah badda heellada ka samaysnayd maansadaas waxaan filayaa qoladii mucaashaqiintu inay soo dhawaanayaane bal hadda taa iyadana aynu kusoo dhawaano waad mahadsan tahay mulidow walaal maraan sidii balkaa jacaylka dafir ayuuna ragga sugaanleyda gabyaagaa ka mid ah oo khadar halac la yidhaah khadar cabdi ibraahim khadar cabdi ibraahim khadar halac buu ugu dheer yahay aad iyo aad ayaa wuxuu nin yidhaha jacayl ima hayo waa nin yidhaha ma neefsado halkaasoo isagu way bal hadda aynu kusoo dhawaano waxay ku bilaamaysay sida tan higaad gabay maansa howlgalah iyo hawraar iyo hadal dardaaranah iyo abyanow heelladii ma heensaynoo wayadan heelkeedii maan teginoo baydgaabka hadheeyey looga hadhiyo hidiya quruxdeedii hoosu ridiyo hagoogteedii ka haylhayliyo hugiyo halxidhaalihii ka tegiyo abwaan hore iyo haliya isbidiyo dadkuna hugaagarbax haahaydo hinaasihii baan ka haajirayo horaan dan iyo hadafba ugu seego hurdada uga tegay habeeno dhanoo taydii ku hallowday hurinteedii haddana halabuurku waa hoodoo hibiya waa hadiyad eebbahayoo hantiya waa kayd afkeenna habo markaan hakiyaba laacbay hirayo hamuunan qabaa kolka ay horto sidii hogorrab kusoo hinqade maantana hamigii jacayli heliyo halaysan cishqiga haleel ku timaa qalbiga holac iyo heefgeliso fadkiyo heegada humaag la mida dhowaan halacsiga hortayda maro dhaayow hamabere daraandar horlo hanaa socoshada haldhaaw dhigmiyo hiirtii waa beri huruud midabiyo hilbaha miisaan jidhkeeda hayiyo gamaasan qaroorka hayb la noqdiyo halkooda xubnahaan ka hoos mariniyo ciridka heli madow ciliga hoodiyo ilkaa hodankuha caddaan hufaniyo timaha hawre haabto sintiyo xisho tanashadii hormuud ku tihiyo haybadda rabbigeed u guud huwiyiyo milgahan hadalkoobin baan ka helay dhaaxaan ka hagoogtay maalmo hor loo haween iska hiifayoon ka hirtiyey haddeer shadkayni way iga hadhee hoosas galgacayl ayaan hadhsadee midkii hoodaniyo haleelay cilma sadriga heriyeystay oo ku hurdee anoo habeenii galay gogosha ku hadree markay heediya dabab hidisaa hawi kacaadareeni hayee heeraabaha ay ka haasawdaa halay garashada hilmamin bariyee horteeda markay hanaaniyo joog haagu timaad hiddaa xasishe waxay hidaraacday hooyo sanoo habi gobannimo qajeel ku habto hoggiyo taladii iyana hanato hufnaan bari aabbaheegana hiyo waayan hal dhisaa halbeegga tuso duqhoodalaba tilmaan ku hago hoygay ka tamay akhlaaq ka hesho heensaha shaydaanka may higsano hallowga xuna ku hobtay dhigeed waqeed hiigeeda may gelino habeen dhaxa keena ceeb hoosiyo hareer maris dhaqno may hollano
halgan ka nololeed kamay hakano hayaan sharafeed inay hindistiyo waxay himilaysataa hogolo hal door weeyaan haween ku baro gayanka hela lib weyn ku hirtay war maxaa tiri hubaal aniga halka dhufsatiyo hubaal aniga halka dhufsatiyo ka sheeda u helan baa halwato jacaylha qabliyaha loo siiyay inaan hel madaxi hoos fadhidiyo hilaad qiimo leh hujuumo talko fardiyo horogeel hurooyn midab loo habsami guurkeeda waan hamiyey adaa rabbiyow deeqiyo hibale adaa hiilkiyo gargaarka haye inaan hoy wadaagno hoodadano inaan hal quriyo hugi noqono habliyo weelaan hanuunka barniyo horinta aan dhalay horaad ku dido inaan hantiyaan hamuunu qabe adaa hoodiyo qabuulka haye adaan baabaca ku hoos gogladee adoon hayeel wacaa hungada ka jire qadaan had kastana daciif fakranine aan hawsha gale hankaygaji intaa dambe ducayn ka hayd malaha mawlidowo heeladaas no sidaas aan hawsha gale hankayga ajiib ajiib waa hagaag dee aamin baynu leenahay aamin so horta weli ma joogto weli waa joogtaa sima waa hagaag aynu soo qaadano tixda mar hadda ugu dambaysa cabdiraxiinow gabay halku dhigaysa la yidhahdo muquno ayaa kamid a gabayada aada urisay ee halkan inoogu diyaarsan muquno muxuu daaranaa mawlidow kollay sida gabaygaba ka muuqataa gabaygu waa bixin iyo sagootin ninbaa muddo gabay walqa arkayo muddooyin xidhiidh uu waday waay malaha inuu oo inan la waday malaha inuu gabaabsi yahay go-aan macnaha uu guuxaana aanu kasoo dhagaweyneyn xaggiisa arkay xaggeedana siduu sheegay inantii in badan abade maxaa waynu wadnaawuna bahashay kubadiyey goolka miyaan laba dhalini in badan shaasano noqotay kolkii uu go-aan cad keeni waayo dee ama lagu suga ama lagu dhaqaaqana in gaabis jiro dabeetana macnaha isagootiyo ayay ula muuqata wixii aan ka odhan lahaa waaba arrin adag ayuu taxaynayaa wuxuu yii gabaygu kawa ninkaa inantaa muddada ay soo wada socdeen iyadoo xumaan aanu ku fasaxayn wanaag ku fasaxaya aada iyo aad waay ee weliba gaabisku xaggiisa ka yimi xaggiisa ka yimi waa kiiskaa marka uu qiranaya kiiskiisuu qaranaya muxuu yidhi wuxuu yidhi waayadanba maasida dareen uguma muunayn ma marimin haasawihii mayada lahaa maqaawiiri weydiisay iyo geeshumaan marin maskaxaan jacayl faray cishiqa kuma muraaqayn madaaladii iyo xirtii waa iska meel dhigay wax saaad ka meertaba hibada mawla kugu beeray marun baa jid ceel mahwiya madaxu dararta cawaraatixdaan marinaya waa midii garahe waa mid abooniya farshaxna midhif la-aaneede waa midaan haweeniye u sido golola muuq dheere waa madhax dardaarana hadaad maanka gelisaaye waa muquuna aan ku gartay waana meel marahe muddo badan xidhiirka wadniya wada jirkaan maalnay isu milcisiga inii kalgac lagu mataaneeyey hadduu maalmuhu soconayo malaygii soo gaabtay annayna ku mermeriya waa macno la-aan annayna ku mermeriya waa macno la-aane man bislaaday maadhiya tagaad malayga soo saartay midab quruxsan maarin dhalaal sida masciideeda dhirtoo midhaha sii daysay iyo malabka hoobaanta intaasoo makhluuq biricda waad kala masawdaaye muuqaalka adigaa ka wacashay kastoo mudhahe mushahada tallaabsiga ninkii murarku daymooda wuxuu kaaga soo muhanayaa 100 kun oo mayle maan kuu fayow iyo aqoon mawla kuu dhaliye sharaf iyo milgaad leedahay dul iyo maamuuse hidihii macaan hooyada hana taymoonaaye haween kala mid weeye haddaan la isma suugaynin garashada mas-uulbaad tihe muul xikmaa weehe murti hadalka guud iyo hana lagugu miisaanye qof mastuuro badanoo xayaha maydhin baa tahay goonimo mulax baa u tahay maydhax geedsanahe mayalkaiyo go-aankana dhabeel miigan baa tahay haddaad ila midowdo iyo haddaad wiil kala u meerto inaad tahay ma dhaafaan anaa ku markhaatiyahe labadaba haddaad ila midowdo iyo haddaad wiil kala u meerto inaad tahay ma dhaafaan anaa ku markhaatiyahe meeleysigaaga iyo qorshaha aad mashqicinayso muraadkaaga nololeed halkaad maamka ugu hayso hayaankaagu meel doog leh iyo madarsan kuu geeye murugada aadun kuma heshiiye muruyo ciishoode xagayganaba waxaad ka tahay maanta dabadeede marantida haween waxay sugtaa waa martabad guure minan inaad degtiyo raasku waa lagaa maarmaane madar khayr le mool iyo xariir moos nimcadu taallo maal iyo arsaaqaan gurin baraka mood yeesha masna iyo baraadhaha adduun nolol macaankeeda awlaad magaceebiya taqaan diinta marinteeda muxubada haldeer kugu saba
oo murugta kaa dhowra iyo inaad qofkaagii mulkudo faataxaan maraye anigana gayaan magac leh iyo dumarku waa muushe macsalaama waxaan kugu ogahay magan ilaahayebu war maxaa tiri macsalaama waxaan kugu ogahay magan ilaahaye salaamad dee cabdiraxiinow horta waa arrin adag aad iyo aad malaha nin walibana arrintaasoo kale kuma dhaceenba laakiin waa go-aan geesinimo muujinaya dee runtii muujinaya waa tahay dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaan cabdiraxiin yuusuf cabdiraxiin ciir oo waraysiga suuganeed ee barnaamijka aad kusoo maqasheen aanu la yeelanay toddobaadka dambe iyo qayb kale haddii xagga rabbi laga ogolaado ayaa halkan aan idinka soo gudbin doonaa soo saaridii isku dubaridka barnaamijkuna waa anigoo mawlid maxamed dawaaya tan iyo intaynu ku kulmayna barnaamijka dhigiisaana waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo